السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانالكا باريس ميديا waxa aynu idin haynaa daraasad cusub taas oo ku saabsan sahanka qalin jabiyaasha dalka ee sanadii 2018. sahanka qalin jabiyaasha jaamacadaha Soomaaliya waa daraasad cusub oo sanadla ah oo ay soo saartay hay'adda Iftin Foundation ayaa lagu soo bandhigay ardayda ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka iyo waliba dugsiyada sare ee dalka. daraasadan ayaa xog dhab ah ka bixisay xaaladda ardayda ka soo qalin jabisa jaamacadaha dalka. daraasadan ayaa xog dhab ah ka bixinaysa xaaladda ardayda ka soo baxa jaamacadaha dalka marka laga eego tirada iyo waxa ay soo barteen iyo goobaha ay ku kala yaalaan jaamacadaha ay ka soo baxeen ardaydaasi. xogtani waxa ay sahlaysaa in la ogaan karo sida ay isugu dhigmaan fursadaha shaqo ee dalka ka jiro iyo tirada ardayda ka soo qalin jabisa ee shaqadoonka ah. ururinta xogtan ayaa socotay intii u dhaxaysay bilihii Juun ilaa December ee sanadkii tagay ee 2018. waxaana xogtan laga soo ururiyay ilaa 54 jaamacadood oo ku kala yaala magaalada Muqdisho, Gaalkacyo, Baydhabo, Beledweyne, Jowhar, Afgooy, Cadaado, Boosaaso, Garowe, Qardho, Ceergaabo, Galdogob, Buuhoodle, Marka, Dhuusamareeb iyo Kismaayo. sahanka ayaa muujinayo in tirada ardayda ka soo qalin jabisa jaamacadaha dalka Soomaaliya sanadii 2018 ay gaarayaan 14,971 arday, halkaas sanadkii ka sii horeeyay ee ahay 2017 ay tirada ardayda ka soo qalin jabisa jaamacadaha ay gaarayeen 11,263 arday. dhinaca kale markii ugu horeysay ayay daraasadani sanadkii 2018 ay sahan ku samaysay tirada ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ee dalka laga soo bilaabo Hargeysa ilaa Kismaayo. waxaan xogtan ka soo ururinay ilaa 8 daladood oo ka mid ah 12 dalad waxbarasho ee dalka ka jira. tirada guud ee ardayda ka soo baxa dugsiyada sare sanadka dugsiyadkii 2017 ilaa 2018 waxa uu gaaray 14,605 arday. intaa inoo joogto qaybtii hore ee aynu kaga hadlaynay daraasadii ku saabsaneed sahanka qalin jabiyaasha dalka ee sanadda 2018. haddaba si aad ula socoto daraasadani fadlan subscribe saar, gambaleelkana taabo. mahadsanid.